وعشر كيني شناد تحانها برشادة سوغانتا iyo maansada waxaanu ku soo qaadan doonaa qeexitaanka maansada iyo shuruudaha ay maansadu leedahay ereyga maanso waxa loo qeexaa laba hab oo kala gedisan Soomaaliland maqli jirin ما هو التجويد لغة واصطلاحا أما ما هي الصلاة لغة واصطلاحا ربحين تأفكا هبأة يهبأة ربحين علمك ويا منصدة لوقعها مركا فهان لقيحيو منصدة وحلقو قيحها إني تهي إري كيمي إري لوالاه ولي سوغيي كواس أو كلااه لبدي إري إيمان يستو إريغا مان وحو لمد يحي قرادك أما مسكحة يا عقلك إريغا صونا و إن جيدك يلفها حولها وجيدك يلفها حولها واني سانتو كجرين وانت دونيهان لو أديك سدو ساس دراديد مانسو وإري كيمي لبا يري oo macnahood isku noqonayo marka ugu dhawaan la isu geegeeyay ee wax la isu jacburiyo soorta aqliga waxa lagu macnayn karaa inuu yahay hadalka ugu qiimaha badan ee ka soo baxa maskaxda dadka sababtoo ah jiirkuba waa ka ugu qiimaha badan hilibka xoolaha sababtoo jiirkuba waa ka ugu qiimaha badan hilibka xoolaha mar kalena hadii ereygaas la sii faaleeyo waxa maansada lagu qeexi karaa inuu yahay koriyaha maskaxda hal abuurada qaar kood waanu ku wada jirnay ururkii hal abuurka Soomaaliland sanadkii 2009 waxa ay sheegeen ama ay soo jeediyeen ay aragtidooda ku cabireen in ereyga maansa uu ka yimi ereyga ah wuu muusooday oo markii dambena loo bedelay waa uu maansooday muusoodku waa marka uu qofku ku hadlo weedho ku yimid dareen qoto dheer leh oo xambaarsan nuxur loo riyaaqo maansaduna waa hadal ku yimaada dareen ku dhashay hal abuurka oo run ah carabtuna qofka gabayaaga ah ama maansayahanka ah waxay tiraahdaa ashaacir waa kii wax dareemayay marka laga yimaado ereybixintaas afka ah ereyga maanso qeexitaankiisa rasmiga ahi waxa weeye maanso waa magac guud oo kulmiye koox suugaanta ka midka ah oo leh xarafraac habraac ama habdhac luuq iyo jaan maanso waa magac guud oo kulmiye koox ka mid ah suugaanta oo leh xarafraac habraac iyo luuq iyo jaan kooxdaas waxa ka mid ah gabayga geeraarka guurowga jiiftada sidaynu inagu dad u nahay ee wiil iyo gabadh iyo oday iyo islaan iyo loo kala noqonayo ayuu magacooda guud kooxdaas u yahay maanso maansadii baa markaas qaybqaybsanaysa oo laamahaas yeelanaysa ereyga maanso ugu dhawaan waxay isku micneeyihiin ereyga tix labada erey waa qaar isku ujeeda ah oo isku si loo isticmaali karo laakiin aqoonyahanada qaar kood waxay xusaan in aanu tixda xaraf raacu shardi u ahayn halka uu maansada shardi uga yahay saas daraadeed maansada ama maansada aan xaraf ka lahayn ee noqoto jacburka lama oranayo waa maanso maanso jacburo lama oranayo waxa loo oranayaa tix jacbura aragtidaas ah farqiga u dhaxeeya tixda iyo maansada ee ah in tixda aanu shardi u ahayn xaraf raacu maansadana uu yahay waxa qaba aqoonyahano waaweyn oo uu ka mid yahay Maxamed Daahir Afrax qoraagii sheeka Soomaaliyeedka caanka ah ee maanafay sidoo kale noqday gudoomiyaha naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee Somali Ben imakana ah gudoomiyaha akademiyada horumarka afka Soomaaliga ee xarunteedu tahay magaalada Djibouti iyo Muqdisho iyo meelo doora ka dhisan haddaba haddii aynu sii gudubno shuruudahaas maansadu leedahay number 1 kii koobaad oo xaraf raaca waxoogaa baynu ku dul lagaan doonaa
hadiye jeer maansadu waa inay ku aroorto xaraf ka mid ah xuruufta afka Soomaaliga kaas oo ay sharti tahay inuu maansada soo galo hal mar haddii ay gaaban tahay haddii ay maansadu dheer tahay sida gabayga oo kale wuxuu soo galaa ugu yaraan 2 jeer sidoo kale haddii maansadu ay tahay godka kabada oo aynu arki doono waxa shardi ah inuu markasta soo galo 3 goor xilliyada qaarkood way dhacdaa in 4 goor uu soo noqdo laakiin hadba waxay ku xiran tahay awoodda curineed ee halabuurka maansada alifaya maansooyinka ay laga maarmaanka tahay inuu xaraf raacu ugu yaraan hal mar ku jiro wax ka mid ah maansadan magaceeda la yiraahdo xaqudir ee uu sameeyay abwaan macallin cabdirasaaq maxamed cabdilaahi oday wuxuu sameeyay bishii January sanadkii 2009 waxa ay ka dhalatay maansadan xaqudir xasuuq ba'an oo ay xilliyadaas yuhuuddu u geysatay shacabka Falastiin abwaan cabdirasaaq oday waxa uu yiri xaqudirka geesigu xakastuu ku nool yahay xaalad uu ku sugan yahay xakin oo ku guulay buuraha xayaabkiyo ka baxaan xawaashkee baytulahan xabkeediyo rafaxaysinkeediyo xayfa oogadeediyo xulka raamalaadiyo ilaa xaytu saytuun rabbiyo xoreeyo xoogay islaamko muslimiinta xaygee saacad qula la xaaqee qasa xawligeediyo xudumaha islaamkiyo basra xuludadeediyo kaabuusha xarar kale xabada iyo kaaraha lagu xanaf wareemee xinjirtooda dhiigii dhulka wada xargagisay gaaladu ku xoontee sidii xoolada helay hadba xeelad rogayaan inta ay xisaab li'i gaaladu xabaadhe xulun baxay sidiisii la xabaali waayee xadka ruushka uu maro inta lagu xasuuqee xaafadaha islaamkana xuludooyin naariyo xaabooyin sulayee ku xabeebtay tawxiid rabbiyow xoreeyo xoogay islaamkoo adaa xalin karaayee qof kasta xaq uu jiro ha xanaano qaatee xasil iyo wanaagii waanu wada xubeernay soo celi xurmayntii lagu xeeban jiray waa xaq islaamku leeyahay ayay xeesha raaceen xanna ugama jeedee inaan inta soo xulo inta ay xorgogiyeen kuwa samada xula ee ka dheereeya xiinkiiyo suntan lagu xisbeeliyo lagu gubay xatooyada gulufyada ku xaadheen madaafiic ku xaaqeen iyagaa xadgudubkiyo kaaraha xamaartiyo xanan iyo dab sudhayoo waa niman xawaysto xaakimkii abuuriyo caasiye xariirow allihii xurmaysnaa ummad wada xanibanoo samadiyo xuduudaha laga wada xayiray oo xadhig iyo dhibaatiyo xaaluf iyo wareer iyo lagu falay xasuuqoo loo sheegtay xoogiyo xiniyaan ku dheerahay oon cidiba xaalayn xiqdigay qabaan iyo xaalka ay ku sugan yihiin oo loo xog tiriyo xulufada galbeedkiyo kuwa bariba xiniyeen xidigaha islaamkee loo wada xubeeraa doogiyo xumboog iyo xoolahay ka badeen maasaas xaqudir waynu arkaynaa in xaraf raaceedu uu xa yahay ugu yaraan mid ka mid ah ereyada ku jira tuduc kasta oo ka mid ah maasaas ayaa wuxuu ku bilaabmay xarafka xa maansooyinka qaarkood waxay laga maarmaan ah in xaraf raac uu soo galo 2 jeer maansooyinkaas waxa ka mid ah tan kaftanka ay u sameeyay Allahu naxariistay Cabdi Faarax Cabdi Malow ee kaftanka iyo qosolka waxa la yiraahdaa Cabdi Malow bari ka habsaamay shaqadii uu lahaa hurdada tagta awgeed kadibna intii aan la canaanan ayuu isku furtay maansadan gaaban wuxuu yiri sidii bahalkii biriishka ka dhacay birtiye jiilay labada baalood baraarugay goor la soo baxay ilaahay ballankii barqan kacay qosol inta la raftay ayuunba uu Allahu naxariistay Cabdi Faarax shaqadiisa halkii ka galay maansooyinka qaarkood sida heesta kabada oo kale waxa shardi ah in xarafku soo noqdo ugu yaraan 3 jeer waana ta ugu meeriska dheer heesta kabadu maansada Soomaalida sidaad ka arki kartaan koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel malahayaay naagta kabadalehey kaalintaraney adankaydu sii dhiganey
ugu yaraan waxa ku jira 3 xaraf raac koronkor cuni mayno ko koronkor karibo mayne karuur watugu meeriska dheer maansadaasi suugaanta Soomaalida sidoo kale maansooyinka qaarkood wuxuu xaraf ku soo noqdaa 3 jeer iyadoo aan laga maarmaan ahayn maansooyinkaas ama tixahaas xaraf raac uu soo noqonayo 3 jeer waxa kamid ah gabaygan uu tiriyay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hanfi iyo hurriga soo dhiciyo inifta bayle hanqadhiya hilaac biligle iyo halalac roobaale irhab qamay xareed laga hirqaday haradigeed baale xiin hawle iyo heego huran hogol daruuraale waliba kaasi afar weeye xaraf raaciis hirdoog liyo caleen hamasha iyo haba taciid baale maal hore ciir laga hanfaqay 7 hagaagaale inkastoo gabayga uu shardu yahay in xaraf raacu 2 jeer soo noqdo waxa jira mid aan sameeyay bari ay qolooyin igu lahaayeen suugaanta iyo howlahan ka dhex bax oo aan anna ku lahayn maayay ilaan ka jiba keenay bal inuu si fiican meel fiican uu la maray igu duceeyay ayaa jira waxaan soo baxay 4 December 2008 wuxuu yiri dahabiyo hadii ay dad lacag dollar adag dooni dar kaleeto darajiya aqoon dibad u doonteenba duhnigayga deexdii gaba doorkan daar ku leh anigoon aan daabicin diiwaan duulka wada deeqa dibad dalkeen iyo dunjiga degalka Soomaali anigoon dabuub wacan u dirin doodna ugu deeqin ka dilaac shidaahe hadeyn deynta maansada daayin inuu dariiq door la iyo dawsan igu raacsho digrigoon dushaas iyo dahriga abid ku soo duubto diintoonan daayicin ducdeed daalna iga reebin duca igu dardalan doolka waan si diyaar ahaye haddaba waxaynu nidhi maansooyinka wax shardi u ah inay xaraf raac yeeshaan oo ugu yaraan erey ka mid ah meeriska maanso kastaaba uu ama mar yeesho ama 2 yeesho ama uu badnaan 3 yeesho waxa dhawaan soo baxay dahfur cusub oo suugaaneed oo ah in la sameyn karo maanso 2 xaraf leh ah intii aan ku guda jiray barashada iyo wax ku ogaanshiyaha maansada weligay ma arag maanso intay ku bilaabanto ku dhamaata 2 xaraf laakiin waan arkay tuduc kamid ah maanso oo leh 2 xaraf raac sida meeriskan gabayga ah ee ku jira gabayga geela ee uu sameeyay Allahu naxariiste Umar Maxamed Korshe Umar Australia wuxuu yiri waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele tuducani waxa uu leeyahay 2 xaraf raac oo kala ah dha iyo sa laakiin gabayga geelu guud ahaan wuxuu leeyahay 1 xaraf raac oo ah dha shagal xaasi dhowray u dhaqasho waa geelaba meerisidiisa kamid 1 xaraf raac buu leeyahay maansada la yiraahdo dabataxan ee uu sameeyay Allahu naxariiste Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye waxa ku jira iyaguna meerisiyo leh 2 xaraf raac maansadaas dabataxan xaraf raaceedu waa deel Gaariye wuxuu yiri codni maan ku diri karo col hadaan u soo dubo codni maan ku diri karo col hadaan u soo dubo wuxuu bay daran tahay ka dambe halkiisii loo doorto jecelahay labada meeris ee ah colni maan ku diri karo col hadaan u soo dubo waxa ku jira 2 xaraf raac oo kala ah deel iyo cayn deel iyo cayn ama da iyo ca haddaba bartamihii sanadkii 2008 ayaan arkay maanso ay dhammaan tuducyadeeda ama meerisyadeeda ku jiraan 2 xaraf waxaana sameeyay Abwaan Axmed Salabaan Xirsi oo markaa oo ah halabuur dhalinyaro ah sanadkaana kamid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay dalka Suudaan Abwaan Axmed waxa uu maansadiisa ku qotomiyay 2 xaraf oo kala deel iyo shiin ama da iyo sha tuduc kasta oo maansada kamid ahna waxa lagu arki karaa 2daas xaraf raac saas daraadeed Abwaan Axmed waxa uu mutaystay in loo aqoonsado abwaankii koowaad ee Soomaaliyeed ee maanso ku tiriya 2 xaraf raac oo kala ah da iyo sha abwaankii koowaad ee curiyay maanso 2 xaraf leeyahay waxaanu maansadan kaga qayb galay tartan suugaaneed
ka dhex socday oo halabuurada isku weerarsanayeen mareegta arrin ka hadasha wararkana gudbisa arrimaha bulshadana sidoo kale ka hadasha ee www.hadwanaagnews.com daafurmaanseedkaas farshaxanka ayuu soo kordhiyay abwaan Axmed Salabaan Xirsi waa guul suugaaneed oo uu soo hoyatay guud ahaan halabuurka dhalinyarada ee nool qarniga 21aad maansadan وابوان أحمد سلمان حسيتري ومقعد الله يلاحظ دنيا شال اللي بحرف ليده ميرسيده دي وحكم ده دول مباي شيء يدي دي بنتا كشيح تدي دنبا تدي هشاعيني مانصدن دنيا شال دادك ووش فاعو دارين كيشي دايو دو خوض شانده مانصدو دعية شرف ودوالد شدن او شعب كياد دوينها dareen kii shidaayiyo danta loogu sheega ninka deel ku shawriya ninka shiin ku dabagala docna lama sharaysto caawaba shaxdan dagay shaqalkiiyo dawaarkii shicilkeenu daayimay shay buu kaga duwan tahay sharciguna ma diidana shaacirkuna ma daalee kolba sheeko dadaniyo dabin iyo shirqool buu intuu sheed ka daawado duurxulkeeda shiila أنا شيئاً إيدران دولمر أنكو شيء دوتسيجي دولمر أنكو شيء دوتسيجي شلايتيو شارو بدخان لي شعب كاجا دلع سدي شلكي لوجا ضوجلي وحي درع شهيديو وحي دوب كشاحدي دول ميجو شرايستو درجة شن شركعي تلكيبو كشدينيو دتكو موشي ديسني daacad bay u shifaystaan ma dareenkii shidaya dustusiye shaxaadiyo dufan lagu shifeeyaa dulucdeeda sheekadu waxay daaran tahay sheeg madil iyo shirqool iyo doog iyo shil baa dhacay maduumiyo shar baa jira dadweynihii shibtuu galay ragnada gubya sii shiday dahabbay ku shiilaan 5,000 oo dilaal baa ilaa shaariqiya dubay sheerkoodu daabula shaamareerka daba yaal shiinow daryeelkii shalay buu ka duulo dayartiyo shabaabkii darxumay la shoogeen shaaray daba qableeyiyo shamis deen ku siisay shilin u diiqaan waxaan dooday kugu shubay sharcigiiyo dastuurkiiyo daacadnimada sheegtaa danyartiyo shaqaalaha damay shaafiyeysa haddaba waxaynu nidhi xaraf raaca waxa la dhammaan maansooyinka kala gedisan haddii aanay maansadu xaraf raac lahayn oo halabuurku xaraf raac ka tago maansadaas magaceedu wuxuu noqonayaa jacbur oo inagii hore u soo nidhi tix jacburo bay noqonaysaa haddii gafkaas uu halabuurku sameeyey ee uu ka tagay xaraf raacana waxa loo yaqaan deelqaaf ومركا قبياغو أما مانسايانكو وكتاقا حرف في مانسادا لكن مانسادا أشياء كلا لسما هانو شخصانتي وهلا بوردي هربو إن ليجي كمغلي تشرني مدالي ديلقاف كوو كادي لا قبي مدالي ديلقاف كوو كادي لا قبي حرف راع وحا كلا وغاتا غار كميدا ما يدا منا هاشر دي إني ماستكستا حرف راع يلاتو ما يدا حرف راع على وحا كميدا قنير صعده قد حما مدو قنير صعده قد حما مودو قنير يقضح بالك كجرا حرف راع بيلادي فركلي فول ما دقدو فركلي فول ما دقدو halka laba xaraf ba ku jira oo ah far iyo fool miskiin ba miskala fuulo leh ayaa iyaduna kamidka taawadu halkay macdan ugu barato ayay macluul ugu baqtidaba iyaduna yeelan kamida xaraf raaca waxa kale oo yeesha qaar kamida ereyada loo yaqaan lamaanayaasha ee Soomaalidu ay adeegsan jirtay ee labada isu raaca sida dooc iyo dareen arrinka maxaa dooc iyo dareen dixi iyo dareen doog ugu wanaagsan ee xooluhu cunaan baa dixi iyo dareen leeyahay dixid iyo dareemada mulaciidaadku waa ka halabuur kula raq iyo ruux war in raq iyo ruux qofka ma aragteen chief iyo joog bawandiid war iyo wacal maxaa haysaa laf iyo ludba kamida so iyo saamba kamida xila iyo xoolo ayaa kamida Soomaalidu waxay lahayd erey bixin xagga qaanuunka ah ama sharciga ah kiis kasta oo garsoor u baahan
waxa loo qaybin jiray laba qaybood oo xaraf raac leh marka hore kiiska walba waxa loo qaybin jiray ama garta dhur iyo dhaqan dhurtu waa wixii dhiig ku saabsan dhaqankuna waa wixii aan dhiig ahayn ee nolosha aadamaha khuseeya marka dhurta aynu dhiiga ay ku saabsan tahay waxay u kala baxaysay qudh iyo qoon waa markay qudhgooy dhacday ee naf la dilo qoontuna waa nabarka iyo waxa aabahay baa Allah naxariistay kaaliye caaqil buu ahaa dabeedna bari bay u yimaadeen qolooyin dhaawac iyo wax ka cabanaya ilmo la dakhray iyo wax dadka isagoo hawsha malaa in cid kala qabato oo doonayay buu wuxuu ku yidhi war anagu waxaan qudh ahayn uma kacnee haddii wixiinu qoon yahay horta hebel iyo hebel raadiya waaye markaa waxaan nidhi wixii dhiigga ku saabsan dhur baa la yidhahaa wuxuu qaybsamaa qudh iyo qoon waayahay wixii dhaqanna wuxuu qaybsamayaa xilo iyo xoolo xilu dee waynu garanaa waa wixii ku saabsan xaas iyo dumar iyo gabadh la kala beriga hore dumarka xitaa dee waa la kala dhici jiray xooluhuna laba mid bay noqdaan bar ama beer beerta waynu garanaynaa oo dee waa dhulkaa iyo wixii la xidhiidha oo beriga hore dhisma ma jirin barta ayaa waxay u kala baxaysaa laba qaybood oo kala ah bar waxay u kala baxaysaa maxay magan iyo mooro maganta waynu garanay oo waa qofka cid magan u ah oo ama isagu mas-uul ka yahay waxyeelo gaadhay mooraduna waa wixii ku saabsan xerada xoolo xerada ku jira ayaa dhaxal ahaan la isugu qabsan karaa qaar baa la kala dhici karaa magantuna waa baadi ama waa dhac ama waa tuugo marka waxaynu barta ayaa waxay qaybsantaa magan iyo mooro way ereyadu waxa la yiraahdaa waxay dhintaan markay ka baxaan isticmaalka maalinlaha ah su'aalahan ereyga mooro oo kale waa xero haddana meelo kooban ayaa laga adeegsadaa oo kismaayo kale ay ka mid tahay reehbel waa la mooro duugay min waxa weey waa la baabiyay way baabeen xeradoodii baa baaday weey ereyada Soomaaliga ah ee ka sii baxaya ama dhimanaya isticmaalkoodu dee maalinlaha ka baxaya waxa kamid ah gabal wuxuu la mid yahay cadceed ama qorraxda tusaale ahaan gabal dhac hadii lagu yiraahdo waa cadceed dhac gabal dhac waa maxay waa cadceed dhac waxa jira geed la yiraahdo gabal day ama sunflower gabal day waa cadceed hadba dhinaca cadceedu ka xigto ayuu geedkaasi u jeestaa dhinaca baritay dhinacaas u jeesanaya hadii kale bartamuu ku beegmaya hadii kale cadceedu u jeedsanaya waxa kamid ah ereyada sii dhimanaya fall oo ah wajiga su'aalahan dagaal foolka waa la galay fool dhaqasho oo wajhi dhaqasho carabta ayaa sidii aynu ugu wadeene wajiga in la meedho ayay bedeleeno saas uu yahay ereyada uu sii dhimanaya ereyada kale ee leh xaraf raaca waxa kamid ah neefka xoolaha marka la qalo guud ahaan waxa loo qaybiyaa saan iyo so saantu waa haragan sare ama waa maqaarkan socduna waa inta hoose ee lafta iyo jiidka socdii baa waxay u kala baxaysaa laf iyo lud lafta waynu garanay oo dhammaan xayawaanada la isku yiraahdo naas leedu waxay leeyihiin 206 lafood luduna waxay ka kooban tahay jiid iyo jiidkuna waa inta dee aynu hilibka u naqaano jibaaduna wixii kale ee la socda ee ama baruur ah ama xubno kale ah ay noqonayaan erayadan lamaanayaasha ah oo aad u fara badan waxa faahfaahin badan ka sameeyay oo barnaamijka la yiraahdo ereyga abwaanka iyo oraahda fanaanka si waafiya ugu duubay qoraaga abwaanka iyo siyaasiga Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo u waramayay abwaan suxufi Caashaluul Maxamuud Yuusuf oo iyadoo barnaamijkan laga baahiyay TV-ga qaranka Somaliland National TV ereyada lamaanayaasha ah ee afka Soomaaliga ku jira in kastoo inaan soo koobi karin inagoo barnaamijkaas tixraacayna marka shaqalada loo yimaado a
i o u waxa ka mid ah af iyo adin abaar iyo aaran if iyo aakhiro arin iyo adduun ajar iyo abaal il iyo ishaaro abaar iyo oodolulul ab iyo isir ab iyo abti omos iyo abaar axan iyo agagas orod iyo ayaan itaal iyo awood haddaynu ba'da u nimaadno waxa ka mid ah bad iyo berri buur iyo bannaan bur iyo bahal bog iyo beer biyo iyo baad bariyo buuriyada wuxuu ku sheegay qofka wixii ka farcama ee waxa loo leeyahay bariyo waa wixii ay dhalaan hablaha u dhalay buuriyana waa wixii ay dhalaan inamadiisu marka waxa loo leeyahay reer hebel bariyo buuriyo waa intaas qofkaas waxa ka jooga 70 bay noqonaysaa bariyo buuriyo bari iyo bogox bashbash iyo barwaaqo balaayiyo baas haddaynu taada u nimaadno tiro iyo tayo togane iyo tabane tix iyo tiraabtii aynu hore u soo aragnay talo iyo tacab tuur iyo tarbiic talo iyo tusmo tol iyo taag tamar iyo tanaad tiriyo tamuux waa wax fara badan oo ciidaas ah tiradana waynu garanaa taws iyo tiiraanyo jaada waxa ka mid ah juuq iyo jaad juuq iyo jabaq jin iyo jaan jiif iyo joogtayn hore u soo aragnay jiid iyo jabaadha aynu hore u soo aragnay jiib iyo jaan xaada waxa ka mid ah xidid iyo xigaal xoog iyo xawo xeer iyo xaagaan xin iyo xaasid xilo iyo xooladeen hore u soo aragnay xan iyo maxam xas iyo xajiin xalaal iyo xaaraan xuf iyo xaf xayo iyo xishood xoog iyo xeelad xawli iyo xawaare qaada walow la yiraahdo ereyada ku jira afka Soomaaliga ee qaadahi waa qaar la soo ergistay oo Carabta ka yimi haddana ereyadaas Carabta qudhooda khayr iyo khaatumo khum iyo khabaas ayaguna cunta khalintii ku saabsan khuuq iyo khuuro oo bajin waa af Carabi iyaguna khuuradaas فأخرج لهم عجلا له خوار دادا oo leh erebixin fara badan waxa kamid ah dad iyo dunyo digo iyo dambas dab iyo duur dufan iyo dugmo dad iyo dambabeero dur iyo daaba dooc iyo dareenkayn hore soo arnay daal iyo dukaan duuniya daacuun dixi iyo dareenkayn hore soo arnay raada waxa kamid ah rag iyo ruux oo in hore soo sheegnay rays iyo ramaas rag iyo rabbi saada waxa kamid ah soon iyo salaad silic iyo saxariir so iyo santeen hore soo aragnay samo iyo sareedo shaada waxa kamid ah sheeko iyo shaahid shib iyo shaamareer shar iyo shaydaan shaah iyo sheeko dhaadana waxa kamid ah dheg iyo dhaban dib iyo dheef dhul iyo dhaqan hore soo aragnay dhab iyo dhalanteed dhidid iyo dheecaan dhagar iyo dhidid dhuux iyo dhalaan caada waxa kamid ah cid iyo ciirsi calaf iyo cawo ciil iyo calo col iyo cadaawe cuud iyo caan ceeb iyo caydh caruur iyo ciroole gaada waxa kamid ah garre iyo guntane godol iyo gaadiid garab iyo gaashaan guul iyo gowanimo gun iyo gob gar iyo garawshiyo faada waxa kamid ah faan iyo foodho fitr iyo faatir fadhi iyo fagaare ficil iyo falaad far iyo fool fud iyo faar furuq iyo fanto fuulmo iyo faraku hayn qaada waxa kamid ah qoob iyo qaylo qulun iyo qashaabiir qub iyo qasaawir salal qud iyo qoonayn hore soo harnay qadaf iyo qallo qab iyo qoorsi qosol iyo qoonsi qabna iyo qoolaale quud iyo qaalan wadaag quruux iyo qaax qawad iyo qadoodi kaada waxa kamid ah kaaf iyo kala dheeri kor iyo kal kun iyo kaaka kor iyo kaafaan kab iyo karin kud iyo kaar iyo kulayl koore iyo karbaash kac iyo kuf kadab iyo kimis laada waxa kamid ah laf iyo lud in hore soo aragnay leg iyo laguug waa xukaymi afka hindiga oo laag waxay qoranayaan intaas oo laag waa intaas 100,000 laag lur iyo leeleel lug iyo laan laac iyo labeen luuf iyo laacdan
laab iyo lubi maada wax ka mid ah magac iyo muunad bilga iyo maamuus magan iyo mooro mug iyo maax mudan iyo marow mudic iyo madaacale muruq iyo maal manfac iyo magac maariin iyo masruuf madax iyo mijo muuq iyo maqnaan naada wax ka mid ah naq iyo nagaadi nafsi iyo naqsi naf iyo nabaad nabad iyo nolol naf iyo nacfi waada wax ka mid ah war iyo wacaal warsan iyo weersan wadaad iyo waran leh war iyo waayaale walwal iyo walaac wir iyo wiirsi wad iyo wadeeco wahan iyo walbahaar wadaad iyo wabiin wiil iyo walaal هذا waxa kamid ah hiif iyo haaraan hayal iyo heemaal habar iyo habeen haad iyo hanraawe hoog iyo halaag hadal iyo hawraar oo in hore u soo aragnay hiil iyo hoo hungu iyo habaas yaadana waxa kamid ah yuug iyo yamaarug yur iyo yel yaab iyo yaabkiis yool iyo yeed yulqan iyo yootan yabo iyo yahdin maanta halkaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa insha Allah wali waxaynu ku guda jirnaa xaraf raaci oo waxaynu soo socdaa xaraf raaca iyo halka uu ka gala maansada iyo faa'iidooyinkiisa waxa sidoo kale inoo soo socda tilmaamo ku saabsan farqiga u dhaxeeya xaraf raaca iyo qaafiyada Soomaaligu miyuu leeyahay qaafiyad mise xaraf raac buu leeyahay waa maxay farqiga u dhaxeeya xaraf raaca iyo qaafiyada waxaynu sidoo kale wax ka tantaaban doonaa maansooyinka loo yaqaan jacburka sidoo kale waxaynu qeexi doonaa labadii shardi ee maansadu lahayd ee kala ahaa luuqda iyo habraaca ama habdhacda iyo sidoo kale jaantiina waa eegi doonaa waxaynu sidoo kale geli doonaa siyaabaha maansada loo qurxiyo oo ay ka mid yihiin xaraf raaca habraaca iyo salraacu muxuu yahay waynu casharka dambe hadii ay baydmo inta ku horeysana sidaas iyo nabadiino wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.